wararka laga helayo xarunta Villa Soomaaliya ayaa sheegaya inuu socdo shir xasaasi oo lagu dhexdhexaadinayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wadahadallada ayaa waxaa garwadeyn ka ah madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo maalmo ka hor soo gaadhay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ilo wareedi ayaa warbaahinta qaar u sheegay in shirka uu Roble la tegay 4 qodob oo ay ka mid yihiin kuwa keenay khilaafka haatan ka dhexeeya isaga iyo Farmaajo. Wararka ayaa intaasi ku daraya inuu ra'iisul wasaaruhu u sheegay lafta gareen iyo qoorqoor in ay laba taabtaa yihiin qodobadaasi uuna ka tanaasuli doonin waxaana ay kale yihiin qodobadaasi. Shaqo ka joojinta agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. In Bashiir Maxamed Jaamac Goobe uu yahay taliyaha ku-meel gaadhka ee NISA maadaama uu xilkaasi u magacaabay. In wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka uu yahay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. In kiiska Ikraan Tahliil ay baadho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo loo gudbiyay xeer ilaalinta maxkamadaasi si cadaaladda loo horgeeyay dadkii ka dambeeyay kiiskeeda. Dhinaca kale madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ayaa hore u aqbalay xilka qaadista Fahad Yaasiin wuxuu soo magacaabay la taliyaha guud ee amniga qaranka. Farmaajo ayaa sidoo kale doonaya in si gaar ah loo xaliyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax uuna bixiyo diyadeeda sida uu shaaciyay Xasan Faarax oo sheegtay inuu yahay adeerkeed. Si kastaba ha ahaatee xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan Farmaajo iyo Roble ayaa saameyn ku yeelatay xaaladda guud ee amniga dalka iyo sidoo kale geedi socodka doorashooyinka 2021. Dhanka kale wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya kiiska Ikraan Tahliil ayaa sheegaya in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay bilowday baadhitaanka kiiska dacwadda Ikraan Tahliil Faarax oo lagu leeyahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Xeer ilaalinta ayaa isku dubariday kiiska dacwadda Ikraan Tahliil iyada oo xog la helay ay sheegayso in xeer ilaalintu ay heshay ilaa 2 qof oo ka tirsan hay'adda NISA oo cadeynaya sida uu u dhacay kiiska Ikraan Tahliil. Sida ay wararku sheegayaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa la filayaa inuu dhowaan maxkamadda horgeeyo eedeysanayaasha kiiska Ikraan Tahliil oo kala ah agaasimaha xilka laga qaaday ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimaha uu Farmaajo magacaabay ee Yaasiin Faray, madaxii hore ee shaqaalaha NISA Cabdullaahi Kulanajiis, Cabdiqani Diirane oo loo yaqaano wadna qabad oo ka tirsan hay'adda NISA. Haddii uu gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ku dhawaaqo u yeedhidda madaxa hay'adda NISA, khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo uu hadda socdo kulan lagu dhexdhexaadinayo. Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sii xoogaysay kadib markii uu madaxweynuhu wareegto ku magacaabay taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyay ee Fahad Yaasiin oo uu ka dhigay la taliyihiisa gaarka ah ee amniga qaranka. Ra'iisul wasaaraha oo ka jawaabaya go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu ay yihiin kuwo lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran looga gun gaadho kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Farmaajo ayaa doonaya in kiiska Ikraan Tahliil aan la baadhin oo halkaasi lagu damiyo qoyskeedana magdhow la siiyo. Ma cadda sababta uu Farmaajo cadaaladda ugu diidan yahay kiiska Ikraan Tahliil, balse waxaa jira tuhun ah in kiisku uu dhalin karo fadeexad weyn oo xataa isaga taaban karta. Dhinaca kale agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo dhowaan uu Farmaajo u magacaabay xilkaasi ayaa munaasabad ku qabsoontay Villa Soomaaliya. Waxa uu xilka kala wareegay kusimihii agaasimaha guud ahna kusimaha agaasimaha Cabdinuur Maxamed Axmed. Cabdisaciid ayaa horey u ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee waxaa lagu bedelay Fahad Yaasiin oo ra'iisul wasaare Roble oo ka joojiyay shaqadii agaasimaha hay'adda NISA inkasta oo uu markii dambe sheegay inuu iscasilay. Agaasime Cabdisaciid Muuse Cali ayaa soo bandhigay qorshayaasha ku aadan horumarinta howlaha madaxtooyada isagoo uga mahad celiyay agaasime Cabdinuur Maxamed Axmed shaqadii wanaagsaneyd ee uu ka soo qabtay madaxtooyada muddadii uu hayay xilka kusimaha agaasimaha guud. Ammaanada dhowristeeda iyo xilkasnimadeedana aan qaadano una gudano sidaas. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu kaalmeeyo. Maanta xil wareejin bay ahayd. Isbarasho, shaqo dhammaan waa noo dambaysaa. Haddase waxaan rabaa inaan mudnaan iyo sharaf iyo
si walaaltinimo aan ugu mahad celiyo walaalkeen cabdinuur oo xilkan nooga horeeyay haddana wareejinayo. dhankiisa agaasime cabdinuur maxamed axmed ayaa ka codsaday dhammaan howlwadeennada madaxtooyada iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay ku garab istaagaan agaasimaha cusub ee madaxtooyada gudashada mas-uuliyadda loo igmaday. waxa aanu xusay inuu dib u habeyn ballaadhan ku sameeyey hanaanka shaqo iyo shaqaale ee madaxtooyada. runtii wixii noo suuragalay iyo wixii naga qabiyoobay intaba halkan kuma soo koobi karo, laakiin runtii waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay jireen isbedello la taaban karo oo runtii aad ku arki doontaan warbixinada hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay ku qiimeeyaan xafiisyada kala duwan oo ugu horeeyo xafiiska hanti dhowrka guud oo runtii markaan nimid noo sheegay inay jiraan waxyaabo u baahan in la hagaajiyo. ilaa 4 qodob ay noo soo gudbiyeen. maantana waxaa ilaahay mahadiisa warbixintii iyo qiimeyntii u dambeysay in dhammaan waxyaabihii iyo xafiiskaas runtii ku tuhmaya xafiiska inay gaabis kaga jiraan in runtii dhammaan la wada daboolay. wasiiru dowlaha madaxtooyada xasan macalin khaliif oo munaasabadda ka qayb galay ayaa u rajeeyay agaasimaha guud in alla u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday, isagoo kula dardaarmay ka midho dhalinta qorshayaasha shaqo ee madaxtooyada iyo kobcinta tayada shaqaalaha. munaasabaddan ay xilka kula kala wareegayaan labada agaasimo waxaa goobjoog ka ahaa la taliyayaasha farmaajo, agaasimo waaxeedyada madaxtooyada iyo howlwadeenno ka tirsan xafiiska madaxtooyada. somalilanna madaxweyne muuse biixi ayaa xilka qaadis iyo magacaabis sameeyey kadib wareegta uu soo saaray. muuse biixi ayaa magacaabay 5 guddoomiye gobol, agaasimaha guud ee baanka dhexe iyo 3 xubnood oo kale. tallaabadan ayaa qayb ka ah isbedello uu maalmihii lasoo dhaafay waday madaxweynaha somalilan oo sidoo kale dhowaan isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada. digrooto ka soo baxday xafiiska madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay inuu xilalkii ay hayeen ka qaaday axmed cige maxamed geedi, guddoomiyihii hore ee gobolka hawd axmed cismaan xasan cilmi, guddoomiyihii hore ee gobolka sanaag axmed xasan cabdi carwo, agaasimihii guud ee baanka dhexe ee somalilan maxamed sheekh faarax cumar, guddoomiyihii hore ee guddida maamulka hay-adda dekedaha iyo friison abiib xaamud jibriil, xubin hore oo guddida maamulka sare ee DP World berbera. waxaanu magacaabay maxamed cilmi axmed maxamuud, guddoomiyaha gobolka maroodi jeex, maxamed diiriye xayd nuur, guddoomiyaha gobolka staadmadheedh, maxamed cilmi xuseen axmed, guddoomiyaha gobolka sanaag, maxamed cilmi xuseen axmed, guddoomiyaha gobolka sanaag, axmed yaasiin maxamed faarax, guddoomiyaha gobolka hawd, maxamed cabdilaahi ibraahim xujaale, guddoomiyaha gobolka togdheer, mukhtaar cabdi quule maxamuud, agaasimaha guud ee baanka dhexe, siciid shukri xuseen cali, guddoomiyaha maamulka hay-adda dekedaha iyo friison axmed xaaji daahir cilmi ducaale, xubin guddida maamulka sare ee DP World berbera jaamac xaaji axmed muuse, xubin komishanka xuquuqul insaanka qaranka.